siyaasi cabdi sugaal iyo siyaasi maxamed cismaan oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka togdheer uga cadcad ayaa waxay cabasho xoogan dusha uga tuureen shirkadda gaarka loo leeyahay ee ka shaqaysa laydhka magaalada Burco waana kuwan iyagoo eedeymahaasi ka hadlaya. waxaan halkan maanta kaga hadlaynaa arrin in badan soo noqonaysay muddo 4 sanadood iyo sanaati ah dadka reer Burco wada tabayeen dadka reer Burco ka wada hadlayeen dadka reer Burco xanaaq aad ku dhalisay arrinkaas oo ah in gobolka togdheer ay qabsadeen shirkad la yiraahdo Heeko oo aan u naxaynin dadka oo aan u naxaynin dalka oo aan u naxaynin danyarta shirkadda Heeko waxay cadeysatay in ay waxyaabo fara badan ay ummadda ku dhigto in ay waxyaabo fara badan ummadda ku cadaadiso hadda tusaale waxaan soo qaadanaynaa qofka guri soo degay qofka guriga soo degay wuxuu soo kale gurigii matalan shalay oo kale maanta kale shirkadii tagay wuxuu doonayaa shirkadii ka dalbaday dab in ay u sii deyso maadaama ay shirkad ganacsiga waxa lagu yiri qofkii guriga dahad ka guuray ama tii ka horeysay guuray ama bishii hore ka guuray lacagtii lagu lahaa waa inaad bixisaa haddii aanad bixin lay lagu xilmaayo kow waxa lagu yiri heshiis baanu ka saxeexaynaa heshiiskaas oo ah in ay shirkaddu aad u saxeexday haddii uu qof guriga gudihiisa ku dhinto iyo haddii guriga khasaare soo gaaro labadaba in aan shirkadda waxba lagu lahayn taasina waxaan u arkaa inay tahay waxyaabo shacbiga lagu cadaadinayo waxyaabo shacbiga lagu caburinayo waxyaabo aan shacbigu geyn waxa hadda muddooyinkii ugu dambeysay iyaduna aad iyo aad inoogu soo badatay oo inoogu soo noqotay in ay guriga gutaan in ay dabka maxaa dhahaye waxyeeleeyo intaasna aanay shirkaddu ka falcelinino aanay uga garaabin dadkii customerkooda ahaa aanay hagaajinin shacbiga reer Burcana waxaan leeyahay ha ka tooseen hurdado iyaguna ha iska celiyeen shirkadda iyadoo dhibaatada kootada ah ee sicir bararka ku ah bulshada ay la tacaalayeen haddana guryo fara badan baa ku gubtay guryaha ku gubtayna wax alaala wax caymisa oo ay bixinayaan ama khasaara oo ay dadka la qaybsanayaan aysan jirin waxay sameeyeen oo ay yiraahdeen haddii laydhka yaga oo khalad ka yimi oo gurigiina ama hantidiina ay wax ku noqoto wax allaala wax anaga lagu leeyahay haba yaraatay ma jirto marka waxaanu leenahay gobolka togdheer gudoomiyihiisa oo ah madaxweynaha gobolka oo ah barasaabka gobolka adiga de mas'uuliyadda bulshada uu madaxweynaha kuu soo igmaday oo kala shaqeeya danyarta iyo dadkana u dan ma ahan arrimaha noocaasa in lagula dhaqmo adigoo ah mas-uulkii ugu sarreeya gobolka waxaan ku leenahay gudoomiye arrinkaasi adaa gobolka ka madaxweynaha adaa lagu soo gudbiyey waa inaad wax ka qabataa Sheikh Umar Ismaan Sheikh Sheekay wararka GTN TV magaalada Burco.